bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rabnaa inaan ka wacyi gelino coronavirus-ka oo ku soo laba kacleeya Soomaali iyo dhibka xoog leh oo mujtamac ku hayo ka tabadagana waxa ka fiican ka hortaga waxaan dhihi lahaa waxa ugu muhiimsan oo ay maanta dhaqaatiirta isku raacsan yihiin waa in marka hore ay dadka isticmaalaan afxirka wax loo yaqaano iyo kala fogaanshaha masaafada inay kala fogaadaan iyo gacmaha in la iska dhaqo oo marka guriga timaad ama meel aad tagaysid inaad isticmaashid jeermis dil wax la yiraahdo marka insha Allah taala waxaan anaga dad muslimiin oo weesa qaato Ilaahay ka cabsanayo laakiin waxa ogaataan cudurkan waa cudur imtixaan ah oo anaga nala ku imtixaanaya waxaana la fiirinayaa sidaan ugu sabarno iyo sidaan ugu hortagno waxa la yiraahdaa waa quraane in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Ilaahay qoom ma bedela ilaa ayaga iska bedelaan anaga ilaa anagu istaagno waxaan inaan ka hortagno yaani sidaan oo iska ahaanayaan waxaan ku baraarujin lahaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan si wada jir ah masiibadan ku habsatay caalamka oo dhan gaar ahaan mujtamaca Soomaaliyeed oo maanta ay dad badan oo bulshada dhexdeeda ku leh door wanaagsan oo ahaa dad rugcada ah ee nooga dhinteen insha Allah taala waxaan Ilaahay ka baryaynaa in intaas Ilaahay noogu ekeeyaan wax kale Ilaahay noogu darin wabillahi tawfiiq